ka dhacay ku saabsan xukun qarqooshka ay wado wasaaradda maaliyadda waxaan leenahay ninka magafaha lagu tilmaamayo halkan madaxa dadka ku cashuuray $130 oo dadkii maanta Soomaaliland ee diiwaangelinta u soo bixi lahayd ka soo bixi kari lahayn waxaan leenahay xukuumaddu haddii ay arrinka wax ka qaban weydo waxa weeye meeshan xukuumad ma noqonayso taasi waxa weeye shacabka awoodiisa muujin doona waxaan ugu baaqayaa reer Saylac inaanay ka daalin mudaharaadka iyo kacdoonka ay ku diideen ninka ilaa uu ka dhaadhacayo xukuumadda ka qaadaysa meesha wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh iyo 3 baabuur ayaan ku soo hawlgalay saddexdii xafiis boorama iyo lughaya iyo Saylac intoodubana way hawlgaleen marka tii gudidii gobolku way hawlgashay alxamdulillah marka hawsha waa dhamaynay san hore sheegnay waqtigu waa abaar dhoolatus iyo looma baahna haddii la yiraahdo tartan waayo wax lagu tartamayaa ma jiro dadkeenu inuu iswada diiwaan geliyo oo doorashada ka qabgalo guud ahaan ayaanu anagu ku wacyi gelinaynay haddii albaabkeeda leeyahay dhulka aanu soo marnay uu badan yahay laakiin dadku waxa ku jiraan abaar aad u xun oo runtii aan aad loo boonboonin aad moodaysa in laga gabaday halkan Saylac waa magaalada ugu daaweyn Soomaaliland oo ilaa inta qabla islaam ayay jirtay oo halka qura ee uu ku yaalo ama ku ooli jiray masjidkii la oran jiray Qiblatain hay marka waxaanu magaalada Dacdaale waa gobol bay u tahay magaalo madax degmada magaalo madax bay u tahay waxa nasiib darro ah marka aad eegto wax sii dumaya mooyee wax soo dhismayaaba ma jiro Saylac xataa isbitaalkii qorahay ay lahayd wuu xiran yahay oo ma shaqeeyo sababtu shaqeyn waayna waxaan isla malaha kharashka socodsiinta iyadoo customkii loo yacdo ku xigta ayaa la kari waayay inay ku socoto wasiirkii caafimaadka waxa la yiri waxaad ka soo siyaasadaysaa boohoodle cali khaliif oo anigu aan qabo inaanu guluf u baahnayn gurmad u baahan yahay ayuu boohoodle oo wata shalay xabadu ka dhacay inay maqliseen wasiirka caafimaadka waxaanu leenahay waa inaad degdeg Saylac u timaadaa dhakhtarkanina aad u shaqadiisa iyo hawshiisa bilaabaa khilaaf badan baa jira halkan oo qolada kalluumaysatadii way cabanayaan oo waxay ka cabanayaan in laga xidhay wadadii ay u mari lahaayeen gabi ahaanba badda taa lafteedu dee ma dhiiri gelinayso shaqo abuurkii iyo xataa nolol maalmeedka soo saaridiisii marka waxaan leenahay waa in dhibaatooyinka Saylac wax badan laga qabtaa faatax bismillah abaar baahsan baa ka jirta oo iska daa ma garanaysaa xoolihii iyo dadkii ku siganaysa inay wax yeesho xisbigu wuxuu ka xishooday inuu 3 baabuur wax ka badan ku yimaado sababtoo ah waxa weeye dadkaas waa dad u baahan in la taakuleeyo u baahan in lacag gacan qabto u baahan in la badbaadiyo u baahan labada xisbiye kale mucaarad waxa xusid mudan in imika ay isku haystaan gurigii martida Saylac isku haystaan oo barasaabkii lala soo wada hadlayo midna sheeganayo gudoomiyihii golaha wakiilada baawarkii gudoomiyaha golaha wakiilada kuwa kalena sheeganayaan baawarkii xukuumadda haddaba mid walba wuxuu wataa ugu yaraan 60 baabuur buu wataa kharashka ku baxaya waxa soo baabuuri miyaan ahayn inay ugu deeqaan dadka masaakiinta hadda u turanaya waxay golayaasha deegaanka soo kaxaysteen mudanayaasha golaha wakiilada kamida ragay wataan wasiiradii baa kamida waxaan aad iyo aad uga xunoon uga tiiraansiin dadka shacbiga ee dushooda la isku haysto ee u baahan in biyo la waraabiyo ee u baahan in la taakuleeyo ee la doonayo in magaranaysa sanqadha baabuurta iyo magaranaysa sawaxanka iyo mushharada iyo waxa ay ku hugunka ka dhaxbaxay aad baan uga xunnay baan leenahay qoladan maamulkana waxaan leeyahay deydinka gobolka ka masuula idinka awood leh guriguna waa guri anagu waxaanu seexanay ma garanaysaa anagoo ixtiraamina dadka deegaanka iyo anagu waxaanu seexanay albeerkooyinka magaalada marka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha cali guri ka socodka ha